I want to thank Davos Lodge team. waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo kooxda Davos ee daafurka soo qaban qaabisay iyo dhammaan martida sharafta leh madaxweynaha Israa'iil iyo marwadiisa mudane Eric Trump iyo dhammaan ganacsatada iyo siyaasiyiinta miiskan fadhiya kana kala yimid daafaha dunida runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan miiskan ka mid noqdo sidoo kale aad baan ugu faraxsanahay inaan dhinac fadhiyo madaxweynaha Israa'iil Somaliland waa waddanka ugu cusub dunida waxaan uga mahadcelinayaa go'aanka geesinimada leh ee ra'iisul wasaaraha Israa'iil mudane Netanyahu ee uu mar labaad ku aqoonsaday Somaliland kuwaan ogeyn Somaliland waxay xornimadeeda ka qaadatay boqortooyada Ingiriiska Juun 1960 waqtigaas Soomaaliya ma yahayn dal madax bannaan 5 maalmood kadib ayay xornimada qaadatay sidaas awgeed Somaliland ma yahayn qayb ka mid ah Soomaaliya waqtigaas si kastaba ahaatee Somaliland waxay go'aansatay inay si ikhtiyaariya oo shuruud la'aan ula midowdo Soomaaliya si loo xaqiijiyo riyadii la oran jiray Soomaali weyn Soomaali weyn xilligaasi waxay ka koobnayd 5 qaybood Djibouti waxay ka mid ahayd Soomaalidaas oo markaas loo yaqaanay French Somaliland Muqdisho waxay ahayd Soomaalidii Talyaaniga Somalilandna waxay ahayd Soomaalidii Ingiriiska qaybo kale waxay ahaayeen dhulka Soomaalida ee hadda ku jira Itoobiya iyo NFD oo hadda Kenya mar kale Somaliland waxay dib ula soo noqotay madaxbannaanideeda 18 May 1991 kadib dagaaladii sokeeye waxaanu weynay ku dhawaad 200 oo kun oo muwaadiniin ah oo ay dishay dawladdii Soomaaliya ee xilligaas taariikh ahaan waa arrin la xuso in safiirka Israa'iil uu arrintaas geeyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay isagoo ka hadlay xasuuqii loo geystay Somaliland ee sababay dhimashada 200 ee kun ee qof waxaan uga mahadcelinayaa safiirka iyo dawladdiisa sida ay arrintaas u soo bandhigeen Somaliland muddo 34 sano waxay ahayd dal xasiloon dimuqraadiya nabada una diyaara ganacsi muddo 34 sano ayaanu ka codsanaynay beesha caalamku inay dib u aqoonsato Somaliland balse nasiib wanaag riyadaasi waxay rumowday kadib go'aankii ra'iisul wasaaraha Israa'iil saadiradeed waxaan rajaynayaa in dhammaan dadka miiskan fadhiya ay taageeri doonaan aqoonsiga Somaliland waad mahadsantihiin dhammaantiin